Asalaamu calaykum. Sheekadeyna maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan oo la noolayd familkeeda. Gabadhan waxay ahayd gabar madow oo dadka tuulada oo dhan waxay ahaayeen dad cadaan way ku qusqusli jireen gabadhan markay arkaan gabdhaha tuulada. Markii dambe gabadhii waxay bilow jirtay markay arkaan gabdhihi sida ay dhahaan inay iska murugooto. Markii dambe ayay waxay soo gadatay. Markii dambe gabadhii waxay bilowday ayada oo faraxsan in ay marsato, laakiin gabadhii midabkeeda wax ma uusan iska bedelin. Markii dambe ayay way iska murugootay gabadhii. Markii gabdhii u taga saaxiibadeedana waa ay ku qusqusleen. Markaas ayay ku dhaheen adiga waxaad doonto samee, dadka tuulada oo dhan waa cadcad yihiin, adiga kaligaa waxa ku madoobay la yaabanahay. Haddii agteen ay maadid waa isku ceeboobay inaa xaafadaada iska joogta ayaa ku ron, dadka oo dhanna waa kula yaaban yihiin si aad u madowdahay, waxaa marsatay miyaad waayeen. Markaas ayay ku qusqusleen mid walba mid ayay u dhiibtay. Gabadhii markay aragtay sida ugu caynayaan saaxiibadeed waa iska murugootay oo shib ayay ka dhahday. Maalmihii sida ayay u socdeen. Gabadhii markii dambe waxaa soo doontay familkaas oo ahaa famil aad u wanaagsan. Labadii familna waa is aqbaleen. Markii dambe gabadhii laakiin halka gabadhii ay ka murugsaneyd gabadhii markii dambe ayay iska soo baxday. Markaas ayay qolkii soo gashay. Markaas ayay waxay ka murugoonaysay midabkeeda. Hooyadeeda ayaa u imaaday gabadhii oo murugsan markii ay aragtay. Markaas ayay ku dhahday gabadheedii waxba ha ismurujin, midabkaad aad ay ugu qurux badan tahay, dadkaana waxay sheegayaan inaad iska dhaaftid ee dantaada qabso gabadheedii. Markaas ayay ku dhahday hooyo aniga dadkan wax ma iga galin, laakiin aniga waxaan rabaa inaan gabar cad noqdo si aan ku noqon lahaa falkeed inaan galo waay hooyo xoogaa ayaa nasanayaa banaanka ayaa naadaa. Gabadhii markii dambe waa hooyadeed waa soo fasaxay xaafadii banaanka ayay iska soo baxday ayadoo banaanka iskaga murugsan. Ayaa waxaa soo dhacday boqoradaas oo baalkeeda ka go'sanay. Markii ay gabadhii aragtay ayadoo murugsan ayay intee kacday ay ku dhahday hal mar kac, maxaa kugu dhacay ii sheeg. Gabadhii markaas intee soo kacday ayay ku dhahday aniga saaxiirada ayaan isdagaalaynay, baalkaygana sidaas ayuu go'ay, waxaan ku sameeyana ma aqaan, halka awood aan lahay baalkayga waay gabadhii wax la ii sameeyaa baayoy. Markii dambe ayay is soo raaceen xaafadii ayay keentay. Gabadhii waxay ka murugaysay waxay ku sameey lahayd. Markaas ayay ku dhahday xoogaa istaji, aniga ayaan ku sameynaa wax yar ka bacdi. Markaas ayay ku dhahday saaxiiradii way soo socotaa, baalkaygana wuxuu ahaa baalkii ugu awoodda badnaa iga baayoy wax la ii sameey. Gabadhii si kasta ayay u bariday laakiin gabadhii way ka murugoonaysay wax ay sameyn lahayd ayay ka murugoonaysay. Markii dambe ayay ku dhahday ha ka walwalin, aniga ayaan ku sameynayaa baalkaaga sida aad u rabtid. Markaas ayay ku dhahday adiga waxaa tahay qof fiican, baalkaygana waxaan ku guda ma aqaan abaayo ciyo ii sameey. Markii dambe ayay gabadhii waxay soo qaaday daawo sida dhees markay aragtay way ka marisay. Kabacdi ayay wixii ugu xirtay. Markii dambe ayay wax ugu xirtay. Markii ay aragtay baalkeedii inuu soo fiicnaaday ayay naagtii boqoradii faraxday. Markii dambe ayaa saaxiiradiisa weyneyd soo baxday ayadoo u hanjabaysa boqoradii. Markaas ayay ku dhahday hadda ayaan ka celinaya, wax badan ayaa ku sugaya inaan ku dilo, laakiin maanta waan ku dilayaa. Markaas ayay ku dhahday aniga waxaad dilaysa ma aqaan, laakiin dhimashadaada ayaa soo doonatay. Markii dambe ayay waxay ku tuurtay awooddeedii oo dhan, saaxiiradiina halkii ayaa lagu qariyay. Gabadhii ayay u mahadcelisay u soo jeesatay. Markaas ayay ku dhahday abaalkaaga waxaan ku guda ma aqaano, adiga waxaad tahay qof fiican, nafsadeedina maanta waa aad badbaadisay, laakiin waxaan kuu sameeyo waa inaan wax kuu sameeyaa leh. Markii dambe ayay ku dhahday laakiin waan ogahay tuulada oo dhan inay kugu caayaan midabkaaga, laakiin waxaan ku sameeyaa baashan waa inaad marsataa, mar walba marso. Markaas ayay ku dhahday haddii aan noqon weyso qof cadaan, aniga ayaa gardarro qaado, aniga ayaan ku siiyay. Halkaasna waa ku soo macsalaamaysay. Labadii qofood isku soo macsalaamiyeen. Gabadhii xaafadii markay imaaday waxay bilowday inay marsato wixii ay ka soo siisay saaxiiradii way ay marsatay. Gabadhii wax yar ka bacdi waxay noqotay gabar aad u cadaan ah. Markaas way ku faraxday. Markii dambe ayay xaafadii imaaday. Markaas ayay ku farxeen familkii oo dhan markay arkeen gabadhooda cadaatay. Markii dambe ayay waxay isku diyaarsatay arooskii ayaa loo diyaariyay. Gabadhii markay aragtay inay qurux badan tahay ayay aad u faraxday. Halkaas ayuu arooskooda ka dhacay. Wuxuu noqday arooskii ugu quruxda badnaa. Gabadhiina waxay noqotay gabar aad u qurux badan. Xaafadii markay imaadeen waxay bilaabeen inay ku farxaan midabkeeda. Familkii ayay wax u keentay. Halkaas ayay familkoodii farxadoodii ka bilowday. Sheekadeennina halkaas ayay ku dhamaatay. Fadlan haddii aad ka heshay like noo saar, subscribe noo saar.